أسد مدحي قف على قفت جرهيس أما مرء لكم أنتي سيد هو أيضا وركيس لو جارسيو aniga ila soo xiriirto muuqaalkaana sheer garay si naxariis ku jirto hadii aad tahay qof hooyo dhashay soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan waa muuqaal tabarucaad ah waxaan u tabarucayaa hooyadan Soomaaliyeed waxa ka maqan wiilkeeda ay intifaacsaneysay wuxuu soo galay Yurub qaasatan wadanka Faransiiska muddo dhowr sanaana ma aysan maqal wax war iyo wacaal ah bal intaana gudagelin muuqaalka bal hooyada iyo dareenkeeda aan idin la wadaago كل غير فرنسا وحان ربا ويل كان او اصلحان بيلها رحوين iyo dudubli ka soo jeedo sida ay noo sheegtay wiil raxweyna in aad garabsiisaan oo aad muuqaal ku shar gareysaan nal raadisaan bedel karim wiilka asdalira فرنسا joogay Soomaaliya ka qabiilkiisa wana raxweyn waay adigana anigu dudubla tahay raxweyn uu ka yahay aadamo هذا مو واي ويل كا بسم الله ليه ميا أقام كسوكر شيء كسدع أواني ما كسوكر شيء سيلو واي هاي ويل كا وهمرك هرب قحوتي أنا وقرا شن سنة وما قحوتي كسيا أنا وما تقولي سيا قول مرك دم أدي شقة سيدي أنا ويا نقبح هاي وحول ليس كي بحشي شقة ما ينسيني قرقين ويا قربحين marka barfa dhacay waqti barfa dhacay heed markaas ay ugu dambe wuxuu hooyo barfa ugu dhacay mobile ma wato gurigay la baxeen hooyo saasana kula soo hadli karin markaas ay ugu dambeysay wax kale oo hadala midna ma arkin waashu dada uu daldalay talyaani wiil jooga am daldalay waxa ma arkin wax kale hada waa weydiin wax kale ilaa la waayay is sidaan u wareegay hada wayna baafina hada Soomaaliya wayna adibka wayna ina wax ay baafidiino ilaahay xaqiisa ay ugu baafidiino in ku imid wiilka adiga aad dhashay ka maqan ma naas ama magac loo yaqaan ma leeyahay madaxii leeyahay madaxweyne magaciisa lagu cali أسد محمد معلم أسد محمد معلم مقعد مدحي هاي أسد مركي سوري حافظوها أنت كل شيء وقري وكبر باري وهاي براندر وها براندر وهاي مقالة وها كل شيء وتجر كل شيء ويا هاي أسد حد هو من قصنجر داديسة ما حاكا صدر يشن إذا صواجرة شو سنجر واي التهم وحو كله قاري هيا وين أنت تقول سو الكهنة قبح الكوه قال من مذوب كلية بدار والد waayahay sidaan hore ku sheegaba muuqaalkan waxaan ku tabaruceynaa ama ku caawinaynaa hooyadan Soomaaliyeed oo ka maqan yahay wiilkeeda Asad Maxamed oo loo garan og yahay Asad Madaxi waxay noo sheegtay maamada inuu yahay wiil raxweyn ah hadama ka ah hooyadiisna ay tahay duduble waa reer Madiino reer wadajir waaye marka ugu dambeysay dalka Faransiiska ayuu joogay marka waxaan rabaa qas kasto ee dalkan Faransiiska ku sugan muuqaalkan inuu share gareeyo waxa laga yaabaa in la helo astaamihiisu ay dhahday waa madaxweyn yahay naanis aan madaxi ayaa lahaa laakiin Asad ayaa la magaciisa caadiga Asad Maxamed ayaa lahaa waa raxweyn Faransiiska ayaan ugu wardambeysay reer Faransiis waxa ay ku ogahay dhowr mar ayaan dad sano kale loo baafinay idin soo gaarsiiyay saacado gudahoodna xogtiisa ku keenteen Asad Madaxi qaf ala qafti garahaysa ama mar uu la kulantay sida hooyadan warkiisa loo gaarsiiyo aniga ila soo xiriirto muuqaalkaana sheer garay si naxariis ku jirto hadii aad tahay qof hooyo dhashay oo hooyo xanuunkeeda awlaadeed ka maqan tahay dareemi karo muuqaalka meel fog la gaarsiiyo Cabdicasiis Riyaalina hawsha wada hal ugu dhiirigeliyo hawl wanaagsan runaantii waa door muhiim ah dadka kala baadiyoobay in la isku raadiyo hooyadana waxaan rajaynayaa insha Allah inuu Ilaahay wiilkeeda u sahlo